شيء soo socda waa wada tashi laba cisho oo buuxa ah oo ila gelinka dambe la shaqeynayo intii halka fadhidana waa intii la door biday inay contribution ku darsan doonto wada tashigan sida ogtiin iminka adduunka oo dhami marka dagaalada dhaqaalaha iyo laga yimaado iyo dagaalada siyaasadda hawlaha ugu adag waa hawlaha deegaanka ayaa iminka aad iyo aad adduunka uga hadlaya waayo deegaan bini'aadamku qaribay oo markii hore gacanta ka baxay runtii oo mushkiladii badan ay dhaceen ayaa iminka la rabaa in la daba qabateeyo waxa sawirataan diyaar garowga shirka Stockholm plus 50 oo maxay tahay 27kii uu shirkii hore ahaa iminkana June laga yaabo in lagu qabto shirkiisii dadkii fadhiyay 27kii shirkaasi waxay ka wada hadlayeen iyo waxa maanta laga wada hadli doonaa dawo wax xirkii dhulka isu jira absolutely wax aad iyo aad u kala duwan marka runtii waxaad garan karaysaan culayska in arinta deegaanka iyo isbedelka cimiladu adduunka ku hayo oo runtii laga yaabo inaan in badan ku baraarugsaneyn nasal Soomaaliland oo kale dadkeenu arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada xoog lama socdaan waana arin ah top priority adduunka marka loo eego sidaasana inagu waliba warshado waaweyn iyo diqow badan ku lahayn laakiin wixii cid kala sameeyeen ba inaga inagu soo waa ogeedeen daadadkii iyo roobkii dhacayay iyo duufaanada dalka imanayay wixii xeebaha ka dhacay oo dhan waa ogeedeen waa la socoteen xeebta galbeedka iyo waa ogeedeen caynkay noqotay waa culayso meel kale ka yimi weeye runtii marka runtii waxa leenooga baahan yahay inaan maskaxda toojino cilmi baarisaha khubarada ay soo sameeyeen ku saabsan arrimaha deegaanka loo diyaar garoobayo bal wixii ka soo bixi lahaa shirka waxa ka soo bixi doona dee malaha say u muuqato kontonka sano soo socda wixii lagu shaqeyn lahaa marka inaynu national level inagu maartay dadaalo wixii aynu war hayno imika halkan xagga wasaaradda intaasoo isduwo oo gobolada dalka oo dhan ka yimi baa jooga saraakiil wasaaradda ka tirsan waxay tahay xafiiska ah baa joogta waxaan rajaynayaa idinkuna contributionkiina inay xoojisaan oo aad ku darsataan wada tashigan macluumaadka iyo wararka ay khubraduna siinayaan ina maartay iyagana u dhug yeelataan runtii waxa laynaga doonayaa duni kale adduunyada kale ma jirto balaanad kale oo bini'aadamku uu leeyahay oo dhulkan ahayn ma jirto inaynu maxay tahay healthy planet yani meere caafimaad qaba oo wanaagsan dhul wanaagsan oo deegaankiisu maxay tahay bini'aadamka iyo noolaha kaleba uu applicable ku yahay cidii mas'uuliyadda lahayd inaga kamid inteena halkan fadhida kamid on individual basis human being oo dhan dadka bini'aadamka oo dhan deegaanka xilba ka saaran marka waxaan rajaynayaa in wax midho ah maxay tahay in midho fiican inooga soo baxaan oo maxay tahay argument wanaagsan Soomaaliland waxay kamid tahay 10ka dal macluumaadka laga soo ururiyay ila maxay tahay inaga dhinacna Charles bay inooga tahay oo waxa weeyaan baahiyaheeni iyo dhibaatooyinkeeni grassroots ka habeen sheegan doonaa dhinacna waxa weeyaan dee adduunka contribution ku darayna marka maanta aynu isugu nimi oo magaciisa la yiraahdo Stockholm konton sano iyo dheeraad waxa oo la xiriiraa sanad guuradii ka soo wareegtay konton sano shirkii lagu qabtay Stockholm June shanteedii oo ilaa 7 socday shirkaas oo ahaa shir qaramada midoobay ay qabatay oo loo qabtay ilaalinta dhawrista iyo kor u qaadista deegaanka shirka xilliga la qabtay 50 sano ka hor oo ahaa shir dunidu ay isugu timi oo qaraaro adduunka oo dhan saameynaya lagu saxeexay oo taqaariir waaweyn ay ka soo baxday oo declarations ay ka soo baxeen waxa shirka 50 sano ka hor 27kii bishii 6aad lagu qabtay Stockholm lagu sameeyay hay'adda deegaanka qaabilsan qaramada midoobay oo qaabilsan deegaanka ee la yiraahdo UNEP shirkiisii konton guuradiisii ayaa la doonayaa iminkana in lagu qabto Stockholm June soo socota haddaad aragteen sanad kasta bisha 6aad shanteeda waxaynu xusnaa maalinta deegaanka maalinta deegaanka ee la yiraahdo 5 June ee aynu xusnaa waxay raad ku leedahay
konton guurada marka fariinteenu waxa weeye aan helno deegaan wanaagsan oo kii jiri jiraya aan uga tagno ubadkeena deegaan wanaagsan oo ayaynaan caruurtaan dhalaynaan ka isticmaalin oo deegaan xun oo aanay ku noolaan karin ama hawo xun oo ay neefsadaan yaynaan uga tagin fariimaha magaranaysaa shirkan iyo wada xaajoodadan xagga hoose ka soo bilaabmay qotada dheer ay gudbinayaan fariimahaas ka mid ah fariimahaas baa waxa ka soo baxaya aragtiyo recommendations la qorayo oo inaga soo baxaya oo hadhow tana dhalaya mashaariic dhalaya inaynu deegaanka cagaarino dhalaya oo sidii loogu hawlgal lahaa caalamka oo dhami aragti guud uu uga wada yeelan lahaa si uu wada finance gareyn lahaa mashaariic uga sameyn lahaa magarata qorshaheenu waa ka